dabaysha siyaasadeed ee geeska Afrika ayaa maraysa heer adag waxaana lagu soo waramayaa in waxyaabo badan ay iska bedeli doonaan xaaladaha siyaasadeed ee geeska Afrika. Haddaba sidee bay u saameysay Soomaaliya? Waa xog ururintii telefishinka Universal. Soomaaliya waa dal dagaalo sokeeyay iyo dawlad la'aani ay ragaadiyeen ku dhawaad 30 sano ee ugu dambeeyay waxayna u qaybsameen maamul goboleedyo hanaan federaal qabiil salka ku haya lagu xudumay aragti siyaasadeed oo ku dhisan ilaalinta danaha qarsoon ee dawladaha dariska. isku day kasta oo la isku dayay Soomaaliya dib loogu kiciyo waxa uu qiimeeyay dawladaha ugu tunka roon geeska Afrika oo ilaashanayay danahooda. sanadihii ugu dambeeyay waxa dhacayay isbeddello lixaad leh waxaana dabaysha siyaasadeed ee geeska Afrika ay saameyn ku yeeshatay siyaasadda geeska Afrika iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. xuquuqdintu waxay eegaysaa isbeddelkii ka dhacay Soomaaliya 8 February kaas oo shacbiga Soomaaliyeed ay garwadeen ka ahaayeen kuna guuleysteen markii ugu horeysay inay raad ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya waxaana markii ugu horeysay la soo doortay madaxweyne Farmaajo oo inta badan shacbiga Soomaaliyeed ay garab istaageen. wuxuu maamuladii hore iyo madaxdii ka horeysay ee dalka soo maray kaga bedelan yahay habka go'aan qaadashada xiriirka caalamiga iyo midka geeska Afrika wuxuuna ku dhiiraday in go'aanada Soomaaliya sax iyo qalad ay Soomaalida go'aankeeda qaadato halka maamuladii ka horeeyay ay saameyn ku lahaayeen wadamada dariska xitaa dhismaha maamul goboleedyada iyo magacaabida madaxda qaranka iyo heshiisyada gaarka ah ee Soomaaliya gaarka u ah. sidoo kale xog ururintu waxay eegaysaa isbeddelkii ka dhacay Ethiopia markii ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia uu xilka isaga daadagay isla markaana la soo doortay ra'iisul wasaaraha talada haya Abiy Ahmed waxa uu muuqdaa nin ku furfurcoon siyaasadda wuxuuna gabi ahaanba ka talaabay dhammaan tiirarkii siyaasadeed ee dawladihii ka horeeyay wuxuu horseed u noqday dabaysha siyaasadeed ee geeska Afrika wuxuu ku guuleystay inuu furfuro darbigii adkaa ee siyaasadda waddanka Ethiopia wuxuu ku dhaqaaqay tallaabooyin geesinimo leh sida wadahadaladii Eritrea iyo soo celintii xiriirka labada dal oo muddo gaaban uu soo gaarsiiyay in labada dal ay wax wada qabsadaan. wuxuu ku dhiiraday in Soomaaliya uu wada hadallo wax wada qabsi ah la galo si dhexda looga saaro wax walba oo wiiqinaya danaha labada dawladood. magaalada Muqdisho ayuu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana albaabada loo furay albaabadii wada hadalka. Abiy Ahmed marna ma ogolaan intuu talada hayay inuu wada hadallo la galo maamul goboleedyada wuxuuna aaminsan yahay in danaha Soomaaliya ay madaxda labada dal ka wada hadlaan. wuxuu xabsiyada ka sii daayay dhammaan maxaabiistii jeelalka siyaasadda ugu xirnaa wuxuuna ka hor yimid maamuladii kale taliska ahaa ee dadkooda baabi'iyay qaarkood wuxuu ku hubsaday xabsiyo si dadka dunuubta ay ka galeen ay ula dacwoodaan. wuxuu ogolaaday in kooxaha xuquuqda aadamiga ay daba galaan dadka dambiyada xuquuqda aadamiga galay wuxuuna maamulka Soomaalida u ogolaaday in ay aayahooda ka tashadaan oo soo doortaan madaxweyne daacada waxaana ay soo doorteen madaxweyne cusub oo tallaabooyin muhiim ah hore u sii qaaday isagoo adkeeyay magacii dadka Soomaaliyeed isla markaana calanka deegaanka ku soo celiyay astaanta calanka ee muujinaysa Soomaaliya. xuquuqdintu waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Mustafa uu muuqdo nin buundo u noqon kara labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya kana shaqayn kara danaha ka dhaxeeya labada wadan. Ethiopia oo 100 milyan ka kooban waxay cagta saartay dhabihii dimuqraadiyadda waxaana bilowday madax banaanida saxaafadda waxaa furmay raadiyaal telefishinno iyo wargeyso madax bannaan waxaa la ogolaaday in ay dibadda u soo baxaan oo la maqlo codadka kala duwan ee dadweynaha Ethiopia. dabayshan geeska Afrika waxay saameyn ku yeelatay wadamo ay ka mid yihiin Djibouti, Suudaan iyo Masar oo siyaabo kala duwan ay u qosayso siyaasadda iyo dhaqaalaha wadamadaasi. marka dhinaca kale laga eego waxay xuquuqdintu arkaysaa caqabado keeni kara dib u dhac sida cadaawadda ka dhalata isbeddelka sidaas oo kale dagaalada qabiilka ayaa keeni kara in gobolada qaar ay deganaan waayaan sida dagaalada goosgooska ah ee Oromada iyo Soomaalida taasoo marka dambe sababi karta in kooxaha argagixisadu ay gabaad ka dhigtaan sida qubarada xagga amnigu ay ku sheegeen warbixinadooda. qubaradu waxay xusayaan haddii qabaa'ilka ay dagaaladoodu sii socdaan waxaa dhalan kara isir nacayb iyo gabood fallo waxaana dadka
dhibaatooyinkaasi soo food saara ay u nuglaan karaan kooxaha argagixisada waxaana fududaanaya inay soo dhoweyn ka helaan kooxahaasi. dhinaca Soomaalida waxaa dabayshan geeska Afrika ay furi doontaa albaabo xirnaa oo ay ka mid yihiin kuwa maamul goboleedyada oo muddo badan ka helayay gacan iyo tala wadaag waddanka Itoobiya. dabayshan siyaasadeed waxay Soomaaliya u aragtaa hal dad iyo hal qaran oo Soomaali ah, waxaana dawladda Itoobiya ilaa xad ay ka taxadaraysaa dhammaan gacansaarada soo jireenka ah ee Itoobiya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ay lahaayeen, waxaana adkaan doonta in maamul goboleedyadu ay danaha Soomaalida dhinac ay doonaan ay u kaxeeyaan sida ay qabaan dad badan oo siyaasiyiin oo u dhunduleela arrimaha siyaasadda geeska Afrika. sidaas oo kale waxaa la ciifi doona siyaasiyiinta u janjeera dhinaca Itoobiya oo lahaan jiray awood baasan, waxaana siyaasiyiinta Soomaalida ay ku qasbanaan doonaan in codka iyo talada ay ka dhex doonaan dadka ay doonayaan inay maamulaan. waxaa sidaas oo kale bilaaban doona wax wada qabsiga labada wadan dhinaca horumarinta iyo wax wada qabsiga dhaqaalaha haddii si taxadar leh looga faa'iideysto aan wax u dhimaynin jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliya. sidaas oo kale Soomaaliya waxaa u bari doona waa cusub oo lagu dhisi karo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo xirog leh. dabayshani waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada oo dhowaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo maamul goboleedyada qaarkood, waxaana dad badani ay ka baqdin qabaan amaba ay walwal ka muujinayaan sida ay xog ururinta u sheegeen inay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyadu ay ku adkaystaan inay aqbali waayaan dareenka dadka ay maamulaan oo cod dheer ku muujinaya inaanay ogoleen ku tagrifal awoodeed. waxaana siyaasiyiinta qaarkood ay ayaan darro ku tilmaameen in dawladda dhexe ee Soomaaliya aanay lahayn awood ay ku dhagaysato codka dheer ee inta badan dadka maamul goboleedyada ee isbeddelka doonaya.